kusoo dhawaada barnaamijkeena ciyaaraha Barcelona oo si degdega u xaraashaysa xidiga waaweyn saacado kadib markii la soo saaray jaangoynta mushaarka La Liga. Macalinka la ilaaliyo xulka qaranka England oo u yeeray ciyaartoy da'yar ah kooxda loo magacaabi doona Zinedine Zidane oo dib ugu soo laabanaya shaqada macalinimada tababarka. Qaarta wada daawanaysa nooc maamada falowdii shartii laagta intaba nagu kalmeeya ciriiriga aan ku jirno naga saaray dhiiriga iyo deeqada intaba. Hambalyo Man City hambalyo caaw kooxdii Man City ahayd waxay qaaday weerar weyn bay qaaday si ay hal dhibceeda u dhacsato 3 dhibcood. waa dagaalantay ciyaarta markay 20 daqiiqo ka dhimaneed maadaama markii hore goolal badan ay ku qubeysteen oo mataqaanaa naqshado badan ay cuneen ayaa daqiiqadii u dambeeyay 20 daqiiqo markay ka dhiman tahay halan ku ridano 1-0 Etihad Stadium ay kooxdii Brentford ahayd timid 1-0 loo dhiibano macnaha ay tahay sababtu kooxda Liverpool ayaa hogaanka waxay ku haysaa 57 dhibcood. Man City ka daba imaaday ayaduna waxay imaatay 56 dhibcood kaalintii labaad oo Arsenal ay fadhiday. waxaa la ani game milhana ay dhiman Arsenal ay sugal la raalahow dhadhac inta laga soo wareegtay Etihad Stadium la yimid Brentford ay xagga geysatay xusul iyo jilib u dhiibtano marka guusha uga dhigan kooxda Manchester City oo si buuxda ula wareegtay kaalinta labaad ee horyaalka Premier League iyadoo haysata 56 dhibcood. waxaana ay hal dhibic kaliya ka dambaysaa kooxda Liverpool ee hogaanka haysa ayay hal dhibic ka dambaysaa. Liverpool waxay leedahay 57 dhibcood, Man City waxay leedahay 56 dhibcood. Man City marka hamigeeda xoogaa uu soo kacay waxay leedahay seasonkan indhaan shidanaya koobkii afraadan qaadaya afar aan ka dhiganaa ay leedahay. Liverpool maadaama oo hal dhibic ka horeyso Liverpool waa ku mintidi doontaa kulli saa u malaynayo. kooxda Arsenal oo dhowr bari ilaa shalay ilaa daraad hogaanka maaragtay kaalinta labaad isku sharaxday oo tiri meeshaan aan ku haysana aniga waxaa la yiri gadaaliga mar 55 dhibcood ay haysta kaalinta saddexaad iska fariisa la yiri halkaas lagaga baahan yahay meeshaan lagaga baahan la yiri. Julian Alvarez ayaa dhiibay oo soo noqsaday Fircoonka soo noqsaday Julian Alvarez u dhiibay. Julian Alvarez halan uu lugta u galiyay halan waa ku faataxaystay walow ay caaw fursado badan ay qasaariyeen. Alin halan ku leexiyay oo isagoo macnaha Alin halan sidoo kale dhaliilo badan loo jeediyay bandhigii kulankii Chelsea uu lumiyay fursado badan oo abid taariikhda Premier League fursado badan ayuu habeenkaas lumiyay. marka caaw waxaa la yiri fursad kale laga ma yeelayo halanow wala soo dardaarmay Bob Guardiola gudu ku soo dardaarmay wuxuu yiri halanow ciyaarta Chelsea maxaa sameys aniga waxa ma sameyn caaw hada waxa kale tasaas yeeshid iska jir dhuku iyo Foden iyo mataqaana iyo Bernardo Silva iyo ayuu gool badan isaga qubaystay laakiin halan waxaa la hada caawato wax qasaarisid oo wallayno gool dhaliyo kala raadsana waa aragtay kii Manchester United oo mataqaana oo meelahaas Talyaaniga meelahaas laga keenay waa aragtano kii oo Manchester United u joogo aragtay wuxuu dhigaa wacdaro dhigay Hojland wacdaro dhigaa waa aragtay maaha halalo hada adigna wacdaro dhigi wada caawa hada Brentford Liverpool kaalinta ku jirta hada u soo dhawaan wada Arsenal kaalinta labaad ka qabsan weyd aday ku taalaalayno halan hal xabo caata oo dhacsistano marka Julian Alvarez wuxuu dhahay idig saaxiib idig cabdi idig waa loo dhigay dalaq waa ku rid marka soo kooxdii Brentford ahayd Etihad Stadium caawa hal xabo ayaa madax loo soo galiyay waa iska soo dareertano ciyaarta marka waxay ku soo ilaatay hal yeeber oo guusha ay ku raacday kooxda Man City oo hamigeedii kor u soo kacay dhiiqadana ka bixi doonto ciriiri badan oo ay dareemaysay oo kaalinta saddexaad waa u soo goysano kaalinta labaad ay soo fariisatay. Mikel Arteta waxaa la yiri aniga waxaa la dhahaa Pep Guardiola macallin weyn ahay adigana ku xigeenkayga ii ahaan jirta assist ii ahaan jirta camal marka waaga assist-iga ii ahaan camal aniga hadda adoo assist ii ahaan jiray ma hadda aniga kaalinta labaad iga fadhinay
ra'yigu aliirniyo marka kaalinta labaad caaw saasa dalq looga yirino saaxiibka. Arsenal kaalinta saddexaad, Liverpool kaalinta koowaad, Man City kaalinta labaad, Arsenal saddexley xagga laga rabaano. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa lagu qasbayaa in ay meesha ka saarto xidigo waaweyn oo kooxdeeda ah kadib markii 57 milyan oo gini ay kala badnaadeen mushaaraadka loo ogol yahay inay bixiso iyo lacagta ay hadda kooxdu siiso ciyaartoydeeda, waxaana si weyn hoos loogu dhigay Barcelona oo horey ugu jirtay dhaqaale xumo. Jaangooyinta mushaarka La Liga aanu maanta idiin soo gudbinay waxaa Barcelona loo ogol yahay inay mushaarkeeda ugu badan oo ay bixin karayso isu geyn dhammaan ciyaartoydeeda aanu ka badan karin 204 milyan oo euro oo u dhiganta 174 milyan oo gini ilaa inta laga gaarayo suuqa kala iibsiga xagaaga, waxaana lacagtaasi 57 milyan oo gini ka yaraatay mushaarka ay hadda kooxdaasi bixiso. Real Madrid oo ah kooxda ugu dhaqaalaha badan adduunyada ayaa waxaa loo ogol yahay in ay mushaar ahaan u bixin karto 727 milyan oo euro, 80% dakhliga kooxda ayaa loo ogol yahay inay bixin karaan. Barcelona ayaa hadda waxaa laga doonayaa in ay mushaarka ciyaartoydeeda ka dhinto 57 milyan oo gini, waana mushaar dhowr ciyaartoy qaataan wey. Sida ay qortay wargeyska The Sun, Barcelona waxa ay ku qasbanaan doontaa in ay iibiso ciyaartoy waaweyn. Marka culaysadan kooxda Barcelona waxay uga yaraan karaan inay iibiso ciyaartoyda kala ah Frank de Jong oo ay doonayso Manchester United iyo Chelsea. Sidoo kale waxay culayskan uga yaraan karaa inay iibiso ciyaartoyda ay ka mid yihiin Roberto Lewandowski iyo Gavi, Rafinha, Aruja iyo Pedri. Intaas oo ciyaartoy waaweyn markay gado kadib ayuu culays ka yaraan karaa baa la leeyahay. Kooxdii Barcelona ahayd waa loo daatay caadi darbiyada looga daatay kooxdii Barcelona ahayd. Allahu sahla muuraha. Macalinka layliya xulka qaranka England ee Gareth Southgate ayaa ugu yeeray ciyaaryahanka kooxda Manchester United ee Kobbie Mainoo oo uu ugu talagalay inuu ciyaarsiiyo ciyaaraha ugu soo horeeya oo qaranku la leeyahay dhigiisa kooxda Belgium iyo Brazil. Kobbie Mainoo ayaa la doonayaa in shaxda Ingiriiska lagu soo daro maadaama ciyaaryahankaasi uu yahay ciyaaryahan yar oo ay u fadhido oo looga moodi karo dhulka ciriiriga. Macalinkan wuxuu istusay qadka dhexe oo ciriiriga inuu ka mid noqon karo Kobbie Mainoo maadaama uu fiirsaday ciyaaro badan oo kooxda Manchester United oo qadka dhexe ciriiri ka dhigay. Semberi ciriiriga iyo dhiiriga waxaa looga bixi karaa, Axmed Deyro adag waa looga bixi karaa. Marka macalinka wuxuu arkay Axmed Deygan yarka inuu uga bixi karo dhulka ciriiriga, wuu istusay macalinka. Marka haddii uusan qaadanin xataa wuxuu kala cararayaa waxay tahay waxaa looga gacan hatinayaa xulka Ghana ee uu ka soo jeedo, macnaha dhalasho ahaan xulka Ghana uu ka soo jeedo oo familkiisa reer Axmed Dey ay ka soo jeedaan xoogaa uu kala cararaya oo uu leeyahay armay macnaha ay mataqaanaaye culays badan ku soo saaraan. Kobbie Mainoo oo dhowr jeer macalinku uu daawaday tababar Southgate ayaa loogu xulka qaranka England. Macnaha macalinka wuxuu istusay haddii uu ciyaaryahankan yarkaa uu dhacdhac u siiyo in haddana isagana dhacdhac loo siiyo oo laga rido Africa. Marka wuxuu yidhi ciyaaryahankan dhulka dhiiriga waa ku moodi kartaaye intaan lagaaga horumarin. Macnaha dee waa og tahay Axmed Deyna waaba taqaanaaba, Axmed Dey dabeecadiis waa taqaanaa. Haddii looga yeero England iyo haddii Ghana looga yeero hal iyo dhif baa laga yaabaa inuu waddanka Ghana Afrikadiisa usoo laabto. Laakiin sidaa ogtihiin Axmed Dey Ingiriiska looga yeeray oo yar oo Ingiriis ku barbaaray oo yaraantiisii meeshaas kusoo kacay oo hooyadiis aabihiis meeshaas xabadooda ku siin jireen oo muufadiisa iyo maraqiisa xagga lagu siinaya, ogaaladiis Ingiriis kusoo cunay Ghana usoo laaba ma yeelayo. Marka Kobbie Mainoo wuxuu u arkaa mustaqbalkiisa, aayihiisa, horumarkiisa inuu xulka Ingiriiska ka helayo, uusan ka helinin xagga iyo Afrika iyo halkaas iyo Axmed Deyaasha ayagaaba waxay cunaan leh xaggee igu wadaan u yiri. Marka magaciisa iyo bumbuunintiisa iyo wixiisa
wuxuu ka rabaa inuu xagga ingiriiska uu baasto macalin Southgate-na true baas u dhigano marka maadaama dhulka ciriiriga uu ka baxayo dhulka ciriiriga Axmed Deeyo looga baxayo Kobe Mino ingiriiska ayaa hadda ciyaarta ugu soo horeyso oo Brazil ay leeyihiin iyo Belgium lagu soo tuuro Axmed Deegaas dhulka ciriiriga ayaana loogu moodi rabaa deeqadii dhiiriga waxaa looga bixi karaa Axmed Deegaas oo kale xamaali waaye culays badan ma qabo magac buu rabaa wuxuu raadinayaa ninka Ingiriis waaye marka maadaama uu raadinayo ninka Ingiriis u dheelay gaana waxba kama jiraan Ingiriiskiisu baasanaya macalin Southgate-na saas ku helay Axmed Deegaas tababarihii hore kooxda kubadda cagta Real Madrid Zinedine Zidane ayaa dib ugu soo laabanaya shaqada tababarka oo uu ka maqnaa muddo 2 sanadood iyo bar ah waxaana ugu dambeysay xagaagii 2021 markaas oo uu ka tagay kooxda Real Madrid Zinedine Zidane ayaa kooxo badan ganafka ku dhuftay oo rabeen inay cariiriga uga baxaan oo diiday inuu shaqadaas qabto ayaa la sheegay inuu kaliya doonayay inuu leeliyo xulka qaranka Faransa laakiin xiriirka kubadda cagta dalkaasi ayaa heshiiska u kordhiyay markaas tababarihii joogay wadanka Faransa Didier Deschamps iyadoo waliba madaxweynaha xiriirka Faransiisku uu aflagaadeeyay Zinedine Zidane warkaas xaqiiqadiisa ma hayno laakiin ayagoon baa sheegaya ku warmayso warbaahinta Jarmalka ayaa tiri Zinedine Zidane waxa xiriir la sameynaysa oo xiriir dhow wada hadal u socda kooxda Bayern Munich ee wadanka Jarmalka Bayern Munich ayaa doonaysa inay Zinedine Zidane ciriiriga kaga baxdo Thomas Tuchel oo face to face ay isku qabteen kooxda Bayer Leverkusen macalin Xavi Alonso ayay isqabteen face to face iskaana si aleeri way salaam macalin Thomas Tuchel dhac waa laga galgalay macalin Thomas isagoo gagabayo xaafadda ku soo dhacay hay macalin ka warna leeri dulqaatu yiri dhulka dhiiriga ciriiriga waa ka baxaya dhiiqadan waxaan anaa ka dabaalanaya adinka dulqaata waayaha leeri saaxiib bal hore u socon ku aragnay waxaad soo kordhisid odaygan fircoon ku eg waxaad soo kordhisaa arkaynaa Soomaaliya jambiyoonkii halkaan horarafka yiri Lazio u tagano Lazio markuu u tagaa leeyahay Lazio mana taqaanaa leeyahay anaga Talyaani ana birta qaada dhacdhac alisi waa laga galgal hadana soo jiitmay habeenkii oo meel laga taabtala wuxuu ku soo dhacay noo gurigiisa hadana Allianz Arena ku soo dhacay markuu ku soo dhacay leeyahay Thomas ka waran xaalad zawaad orneo dhulka ciriiri waaye dhiiri waaye xaaladu waa cajiq waaye bal mar kale hadana bal 3 jeer camal markii saddexaad la ii fiiriyo camal hay waaye go'alir boosha ma u tagay boosha dhac way boosisano boosha maday ku boosisay maxay yaala waxa la yiri saaxiib xogaa meeshan joog naso digirtaada iska cun anagana suuqan galina macalin doonayna camal kaas yirnimo saan yaa liigi lacmal macalin suuqan ku jirna camal Zinedine Zidane u yareen waa wada hadleen wada hadal u socda waxay dhaheen saaxiib odayga Thomas Tuchel cunayna cabdi soo xaadir camal maadaama qarankii aweeday xagan aadan waxba ka helin soo xaadir camal marka Zinedine Zidane kooxda Bayern Munich xoogaa dhinaceeda u leexday wuxuu ku arkaa xoogaa wuxuu fahansan yahay meeshaas wuxuu leeyahay ciyaartoy waaweyn oo khibrad la joogta rag odayaal jooga marka raggaas ayada hadii aad dhagto wax ugu sheegtid macnaha Ronaldo iyo Bale iyo Benzema camal oo ku noqon karaan camal meeshaas rag baa jooga Kane iyo Sane iyo rag jooga meeshaas wuxuu macnaha Ronaldo iyo Benzema iyo Bale camal waa ka dhigan kartaa niyo meeshaas camal digira ka banaan diirtada camal ama soo dhacsataa sir dhulkaas ciriiriga inta gashid ama aad waxa ka dhacsataa marka Zinedine Zidane wuxuu leeyahay xagga ama baash ka soo dhacsataa islee marka waa arkaynaa haday ku wada heshiiyaan xagaagan oo odaygan Tuchel la diro Zinedine Zidane waxaan ku soo dhaweynaynaa guriga Bayern Munich